haweenka ku dhaqan degmada Qurlugud ee gobolka Buuhoodle oo kulan ku yeeshay degmada Qurlugud ayaa taageero u muujiyay maayirka degmada Buuhoodle Marwe Khadiija Axmed Aadan Cali waxayna ku dheeraadeen inay la shaqeyn doonaan isla markaana waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland ugu horeynba gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee degmada Qurlugud Caashabaar xubno ku hadlayay ururada arrimaha bulshada haweenka iyo qaar ka mid ah haweenka degmada Qurlugud oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii adiga dagaankaagu soo dhawaada adiga dhalashadaadu soo dhawaada adiga iyo calankaagu soo dhawaada adiga kursigaagu soo dhawaada adiga iyo garabkaagu soo dhawaada alxamdulilaahi rabbil caalamiin bishana dhibil baa dhalatay maanta maalintaanu hadlaynaana waxa soo dhow xaj ciid al-ulxa maanta annaga waxaa noo farxada haddaanu hablaha Soomaaliland nahay ama hablaha barin nahay ama hablaha xusbiga kulmiye aanu nahay maanta bilay bil khayr baanu leenahay bilay bil khayr bilay bil khayr bilay bil khayr maamul adag iyo mas'uul baa la doonayaa maamul wacan iyo mas'uul baa la doonayaa maanta mas'uulkayagii baa dhashay bishayadii baa taagan alxamdulilaahi rabbil caalamiin Khadiija Axmed Cali waxaanu leenahay ku soo dhawow degmadaada iyo degaankaaga iyo hablahaaga kuwa xusbiga iyo kuwa xusbi qaranada kaleba kidi meelay joogaanba hadday bari joogaan iyo hadday galbeed joogaanba wax alla wixii inana ee xusbiyada ka soo baxay ee meel kasta ka soo baxaane ee noogu soo baxay maanta doorashada waxaanu leeyahay hambaliyo aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa gacmo furan aanu ugu soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba Khadiija Axmed Aadan oo ah maayiradayadii degmada gobolka Buuhoodle ayaan u soo dhaweynaynaa soo dhawow baan leenahay maayir soo dhawow annagoo ah degmadii Qurlugud soo dhawow haween cuqaal codkar cid walba aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa maayiradayada aad baan soo dhaweynaynaa inta ka bacdi waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha sharafta leh ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne inanta ka soo baxday gobolka Buuhoodle iyadoo annaga xagayaga aan dawlad taam qaadayba ka jirin haddana waxa weeye waxaan sheegaynaa oo aan galbinaynaa oo aan wadnaa maayiradayada sida loo soo dhaweeyo iyo sida wax loola qabto iyo sida maxay haytay haday mushahar tahay haday kab tahay haday shaqayn tahay haday hawl kasta tahayba in garabka la qabto la daadihiyo ayaan doonaynaa madaxweyne taasaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo maxay tahay haweenkooda intaasaan ku codsanaynaa inta ka bacdi golaha wasiirada cid walba oo ugu horeeyo Maxamed Kaahin waxaan hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin halkan lagu soo koobi karin aan u dirayaa Khadiija Axmed Cali oo habaryar aan u ahay dhashayna adeertay marra maayiradii ka soo baxday gobolka Buuhoodle hambaliyo aad ayaan habar ku hambalyeynaya wax badan isumaan taagin hambalyo iyo duco baan anigu halkan uga dalbaya xilka Allah ku fududeeyo habar yar Allah raxmaankiisa ku fududeeyo ilaahay ku fududeeyo shaqaalaha dawladdu intay leeyihiin Allah ku sakhiro gacmo furan iyo maxay haytay kal iyo laab baan kugu hambalyeynaya ku soo dhawow habar yar aad iyo aad baan ku hambalyeynaya maayiradayada waan ku heelanahay waxaanu leenahay rabbi oo casaawjalo ku guulay xilka ay maanta madaxa saartay waxa loogu gartay xilka waa gabadh qaaliya waa gabadh sharaf leh waa gabadh helidiina waa gabadh maxaan ku dhahdaa ay iska soo xushay beelweyn dhani marka waxa weeyaan waxaan leeyahay Khadiija allo ku guulay Khadiija alla ku guulay soo dhawow baan leenahay Khadiija soo dhawow gacmo faran ku soo dhawow gurigaagii aad iyo aad maanta farxad noogu tahay dhiirigelina noogu tahay iyadoo maxay tahay maayirada daada yar ee maxay tahay aqoonyahanka garabkayga ay fadhido
haddaanu nahay dhalinyarada maxay tahay gobolka Buuhoodle degmada Qorlugud aad iyo aad baan ugu qanacsanahay waanu ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaa waanu la shaqeyn doonaa insha Allah bismillaahi kariin si kala yalaaba khadiija igu soo dhawo wadagtayda maqal xilka lagu saharay Allah ha kugu xafido xilka lagu saharay rabbigay ha kugu xafido oo dinta iyo deeqda rabbi daacadkaaga yeel caleemuhu kaamadaatan cirshiga ka yimi oo cadilkan ku barye taan la ciilin noqo dad iyo dunyana ilaahay daryeel ku sii oo aanu kugu diirsane dawlad noqo walaal oo aanu kugu diirsane dawlad noqo walaal ururka dhalinyarada hooyooyinkiiyo hablaa waxaa loo heegan yahay wahabiya waxqabad ee hoggaanka noo qabo ilaahayna ku hirgeli hoggaanka noo qabo ilaahayna ku hirgeli anana taageera buuxdan la taaganahay anana taageera buuxdan la taaganahay gabagabadiina maayirka degmada Buuhoodle Khadiija Axmed Aadan oo kala qayb gashay munaasabadaasi ay haweenku soo abaabuleen ayaa uga mahad celisay taageerada isla garab taageen waxaana ka mid ah hadaladeedii waxaa farxad gaar ah aan ilaawi karin hablaha Qorlugud aad iyo aad bay igu dheer yihiin hablaha Qorlugud dhammaan tihiin hablaha deegaankayga Buuhoodle oo aan soo baxay oo aan u taaganahay mar walba deegaanka Buuhoodle iyo xuquuqdooda waxaan raadinayaa waa haweenka iyo danyarta iyo caruurta iyo maxay bulshada qaybaheeda kala duwan ma ilaawi doono bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan magaalada Qorlugud ma ilaawi doono iyada iyo degmooyinka la simanba meel gaar ah igu yaalaan hablahaygu ka salaamayaano ka faa'iideysanaya fursadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan si gaar ah u salaamayaa oo kale haweenweynaha Soomaaliland waxaan si gaar ah u salaamayaa 28 hablood ee la tartamay ee ku guuleysan waayay tartanka waxaan leeyahay aniga ayaa idin qabtay maanta xilkii aniga ayaa idinka xigay dawladii insha Allah hawlwelina baan idin leeyahay waxaan si gaar ah ugu sheegayaa hablaha Soomaaliland in aynu isu soo taagno mar kasta doorashada dalka si aynu ugu guuleysano inagoo aad aragtaan maanta tartankii inaan ku guuleysanay insha Allah mar kasta ilaahayna wayna la qabanaya idinkuna isu taaga inaynu ka mid noqono saaxadda siyaasadda ee geeyigeena Soomaaliland